بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب. سنحطم اليأس المدمر بالرجاء، ونمد جسر الحب بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوادا برنامج كيني هو تصالين تدنيرا. حلقتنا وحين كسور قادم دونا عوانك الشباب في الإسلام. dhalinyarada iyo martabada ay ka taagan yihiin diinta islaamka ah. Dhalinyaradu waa kaydka ummadi ay leedahay. Dhalinyaradu waa waxa laga garto mustaqbalka ummadda laga garto. Waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu waa da'da ka dhaxaysa ciyaalnimo iyo gabow. Da'da ka dhaxaysa ayaa la odhanayaa dhalinyarnimo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka waa ku sheegay, waxa uu dhahay innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa. Waxay ahaayeen dhalinyar ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey, annaguna waxaanu siyaadinay hanuun. Sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhahay kitaabkiisa qur-aanka famaa aamana limuusaa ilaa durriyatun min qowmih. Nebi muuse calayhi salaam mayna rumayn ilaa in yar oo qoomkiisa ka mida mooyaane. Intaa yar ee qoomkiisa ka mid ahna waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen dad dhalinyara, inay ahaayeen baa lagu tilmaamaa. Nebi sal alay wasalam waxaa inoogu sheegay axaadiis fara badan uu ku tawjiihinayo dhalinyarada, uu ku tawjiihinayo oo wax ugu sheegayo. Nebi sal alay slam xadiis waxa uu ku dhahay laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'alu can arbaca. ka suuli maayaan godomaha qof bini aadani maalinta yowmalqiyaame ka suuli maayaan ilaa iyo la weydiiyo 4 su-aalood. ilaa iyo la weydiiyo ka suuli maayaan. 4taas su-aalood waxaa ka mid ahaa can shabaabihi fiima ablaah, dhalinyarnimadiisii wixii uu kusoo gaboojiyey, iyadoo oo la weydiinayo cimrigii dhammaantiis isagoo la weydiinayo. haddana waxaa si gaara loo weydiinayaa waqtigii dhalinyarnimada ahayd ee qaaliga ahaa ee qofka bini aadanka uu xooga iyo firfircoonida u lahaaba la weydiinaya. Nabiguna sal alay wasalam wuxuu xadiis kale ku sheegay oo uu yidhi iqtanim 5 qabla 5, ka faa'iidayso 5 intayna 5 ku iman. waxaa ku jirtay xadiiskaa sidoo kale shabaabaka qabla haramik, shabaabnimadaada intaad ku jirto ka faa'iidayso intuuna gabow ku iman. intaad quwadda leedahay ka faa'iidayso intaayna daciifnimo ku iman. sidoo kale nebi sal alay wasalam axaadiis fara badan ayuu dhalinyarada ku tawjiihinaya oo ugu bayaaminaya. waxaynu soo qaadan doonaa hadduu ilaahay idhaahdo tusaalayaal kooban oo ka sugnaaday dadkii shabaabka ahaa markii ay garteen waxay qaban karaan iyo awoodda ku kaydsan markii ay garteen waxay ugu faa'iideeyaan diinta islaamka, bal fil caalami kulli waxay ugu faa'iideeyaan baynu soo qaadan doonaa. ugu horeyn, markii nebi sal alay wasalam waxyiga lagu soo dejinayay, ciddii uu la wajahay uu la tegay waxyiga waxay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen. kuwii qaaday diinta dhibaatadeeda u taxamulay waxay ahaayeen dhalinyar. kuwii gooshay baddii gaalnimada ahayd waxay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen. kuwii bedelay qaab nololeedkii looga noolaa maka iyo madiina, bal fil caalami kullihi waxay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen. kuwii nebi sal alay wasalam uu ku tilmaamay afdalu lajyaal waxay ahaayeen dhalinyar. nebi sal alay wasalam wuxuu yihi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yalownahum uma aladiina yalownahum. dadka waxaa ugu fadli badan dadka qarnigayga nool iyo kuwa kusoo xiga, haddana kuwa kusoo xiga. sidaa daraaddeed dhalinyartaasi waxay ku noqdeen oy martabadaa ku heleen waxa weeye way dadaaleen
tarbiyadii nabigana sallallahu alayhi wasallam si dhaba bay u qaateen. tusaalaha koowaad aynu soo qaadanayna waxa weeye saxaabigii la odhanayay Zayd ibn Thabit. saxaabigaas wuxuu ahaa saxaabi qisas fara badan leh buu ahaa. wuxuu diinta ku leeyahay martabad aad weyn buu ku leeyahay. iyadoo la galayo dagaal ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimiday. kadib wuxuu ku dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkan galaya. saxaabigaasina markaa uu waqtigaa sidaa leeyahay cimrigiisu aad buu yaraa. wuxuu watay seef buu watay. wuxuu diyaar u ahaa inuu dagaalka galo, bal seeftii watay baaba isaga ka dheeray. jiryadiisa seeftii baaba ka dheeray. nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii waa ay ugu cabsadeen saxaabigaas inuu meeshaa ku halaagsamo. kadib waa u diideen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi gurigaaga iskaga laabo. saxaabigaasi wuxuu kusoo laabtay hooyadii buu kusoo laabtay. kadib wuu u sheegay qisadii. wuxuu ku dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta waa ii diiday inaan jihaadkii galo. markaasay hooyadii ku tiri hawalwelin, haddii aad dhinacaa diinta ugu gargaari weyday waxaad helaysaa dhinacyo fara badan oo kale oo diinta ugu gargaarto. markaasay ku tiri wiilkaygii waxaa tahay adigu wiil ku fiican xifdiga iyo kitaabada iyo qorista ku fiican baa tahay. markaa dhinacaaba waad ugu nusrayn kartaa diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala. markaasuu saxaabigii isagna waa ogolaaday. waa isa soo raaceen isagii hooyadii iyagoo la socdaan qolo qabiiladooda ka mid a. waxay u yimaadeen nebi sallallahu alayhi wasallam. way la fadhiisteen. waxay ku yidhaahdeen nebi allow wiilkani waa wiilkeegii, waa wiil ku fiican xifdiga, waxaana uu xafidsan yahay 17 suuradood oo qur-aanka ka mid a buu xafidsan yahay. waxauna doonayaa inuu intaa kugu soo dhawaado. nebi sallallahu alayhi wasallam waa tijaabiyey. wuxuu la yaabay nebi sallallahu alayhi wasallam xifdigiisii iyo maskaxda ku jirta. markaasuu nebi sallallahu alayhi wasallam wuxuu u idmaday inuu barto luqadda yahuudda. wuxuu ku dhahay Zayd ibn Thabitow aad waxaad ii barataa luqadda yahuudda, lianna maxaa yeelay kuma kalsooni nimankan yahuudeed ee waxay qorqoraya hadalka aan leeyahay. kuma kalsooni waxay qoreen. sidaa markii uu nebi sallallahu alayhi wasallam ugu sheegay saxaabigii waa qaatay. waqti yaroo kooban ayuuna luqadii ku soo bartay. wuxuuna u noqday ehel buu noqday. sida qof luqad u dhashay ayuu sidaasoo kale ayuu bartay qoris iyo akhrisba. haddana nebi sallallahu alayhi wasallam wuxuu u dirtay inuu luqad kale usoo barto. nebi sallallahu alayhi wasallam u diray luqadiina sidiisi leh ayuu uga soo baxay. sidoo kale saxaabigaas markii nebi sallallahu alayhi wasallam uu dhintay saxaabadii ay ka cabsadeen in qur-aankii uu lumo ayaa wuxuu Cumar kula taliyey Abubakar inuu qur-aanka jamciyo. intaas ka hor saxaabigaasi nebi sallallahu alayhi wasallam markuu noolaa wuxuu u idmaday inuu waxyiga samada ka soo degaya uu gacantiisa ku qoro. oo wuxuu ka mid noqday saxaabadii waxyiga qori jirtay buu ka mid noqday. kadib geeridii nebi sallallahu alayhi wasallam Abubakar ayaa waxa uu idmaday in uu kitaabka qur-aanka ururiyo oo hal kitaab isugu keeno. lianna maxaa yeelay kitaabka qur-aanka berigii hore ama waqtigii hore musxaf kaliya kuma koobnayn. wuxuu ku jiray maskaxda saxaabadu ku jiray. sidaa daraaddeedna saxaabigaasi wuxuu noqday saxaabigii loo idmaday inuu kitaabka qur-aanka ururiyo. kadibna kitaabkii qur-aankii waa isku ururiyey, hal musxaf buuna iskugu geeyey. saxaabigaas wuxuu leeyahay qisas aad u fara badan. haddaad doontaan waad soo akhrin kartaan. saxaabiga xigaa waxa weeye saxaabiga la yidhaahdo Usaama ibn Zayd. saxaabigaasi wuxuu ahaa saxaabi aad u yar buu ahaa. nebi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dirayay jeish buu dirayay oo wuxuu dirayay Roomaan oo inay la soo dagaalamaan ciidankii Roomaan imbaraatoriyat al-cudma fi Roomaan inay la soo dagaalamaan buu dirayay. markuu nebi sallallahu alayhi wasallam sii dhimanayay ayuu wuxuu uga dhigay amiir jeiشka uu dirayay Usaama ibn Zayd. Usaama ibn Zayd wuxuu ahaa cumrigiisu 18 jir markuu noqonayay amiirka jeiشka. markuu noqonayay jeiشka waxaa ku jiray saxaabo waaweyn oo diinta meel sare ka taagan ayaa ku jirtay.
oo isaga ka waaweyn oo ka khibrad badan oo ka cilmi badan ayaa ku jiray jiishkaas. muxuu u diray nabi sallallahu alayhi wasallam oo uu uga dhigayay amiir, wuxuu uga dhigayay si uu u baro oo uu tababaro ilmahan yar ama saxaabigan yar uu tababaro inuu beri toolo noqon karo hogaamiyaha diinta islaamka, inuu noqon karo ama ummadda muslimiin inuu hogaamin karo. halkaa waxaynu ka dheeganaynaa nabi sallallahu alayhi wasallam inuu ahaa life coach, waxaa la yidhaahdo tababare nololeed inuu ahaa baynu halkaa ka dheeganaynaa. gaaladu markay ka sheekeynayaan nimanka adduunka ugu cajiibsanaaya soo maray waxay ka dhigaan number 1 nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waad arkaysaa tusaalayaal fara badanna waad ka heli kartaa haddii aad akhrido qisaska ama noloshii saxaabada. saxaabiga xigaa waxa weeye saxaabiga la yidhaahdo Talha ibn Ubaydillah. saxaabigaas wuxuu ahaa mid ka mid a raggii ugu waaweynaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa dadka ugu yeedha ee diinta fidiya ayuu ka mid ahaa. wuxuuna ka mid ahaa nimanka ku tilmaaman waxbixinta ayuu ka mid ahaa. saxaabigaasi wuxuu ka mid ahaa sidoo kale fursaanleyda ama kuwa fardafuulka ee saxaabadu leeyihiin ayuu ka mid ahaa. wuxuu gaadhay martabad ilaa nabi sallallahu alayhi wasallam ku tilmaamo طلحة الخير، طلحي خير كبرنا ilaa uu nabigu ku tilmaamo ayuu saxaabigaasi gaadhay. markii uu soo islaamayna saxaabigaas cimrigiisu waxa uu ahaa 16 jir buu ahaa. saxaabadii aan kasoo sheekaynay ama dhowrkii saxaabiyi aan kasoo sheekaynay cimrigoogu ma dhaafsanayn 20 jir, bal way ka yaraayeen markay waxaasoo guula gaadhayeen ay diinta sidaa ugu nusraynayeen. sidaa la ajligeed shabaabku waxay leeyihiin martabad aad u fara badan bay leeyihiin, martabad aad u sarreysa bay leeyihiin oo inaan hadda kusoo koobi karin. cinwaankeedan maanta intaasaan kusoo koobaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.